dadka reer Somaliland ee ku dhaqan daafaha adduunyada ayaa in dhawey taalaba waxay u dabaldegayeen doorashooyinkiisa saarka ahaa ee ka dhacay qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee ay adduun weynuhuna ku tilmaameen doorashooyinkii abid ugu wanaagsanaa ee ka dhacay geeska Afrika. haddaba jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan dalkan UK ayaa waxa ay ku qabsadeen xaflad aad u ballaaran West London Somaliland Community oo ah galbeedka magaalada London. xafladan markii ay dadku isugu yimaadeen ayaa halkaasi waxa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha jaaliyadda West London Somaliland Community dadkii halkaasi isugu yimi uguna mahadnaqay iyadoo nuxurka iyo ujeedada xafladuna ay ahaayeen in loogu duceeyo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo Allah u naxariistee laguna siiyay sagootii oo lagu mahadnaqo madaxweynihii dalka ka degay ee mudane Muuse Biixi Cabdi sidoo kalena lagu soo dhaweeyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro. guud ahaanba dadka halkaasi ka hadlay oo farxad iyo reereen muujiyay ayaa hadaladoodii waxa ka mid ahaa sida tan. bismillaahir rahmaanir rahiim. marka hore aad iyo aad baad mahadsantiin saad uga soo qayb gasheen waana niga mahad celinaa si gaara meeshaan isku imanaa waa West London Somaliland Community waa community-giinii waa dadkii community-ga waa dadkii Somaliland waxa ka soo qayb galay caawa meeshani waxaan ka gudbinaynaa kaliya 3 message baan ka gudbinaynaa haddii Ilaahay yiraahdo arrimihii siyaasaddu ay naga soo dhamaadeen hore baan u soconaynaa development baan galaynaa laakiin arrinka ugu horeeyay horta gudbinayna waxay noqonaysaa haddii Ilaahay yiraahdo Ilaahay u naxariistee madaxweyne Axmed Maxamed Siiraanyo oo waqtigii doorashada ka bacdi dhintay marka hore faataxada u mara oo maasantiin Ilaahay u naxariisto mar labaadka waxaan u mahad celinaynaa madaxweynihii 7 sano inoo soo shaqeeyay labada doorasho ee qiibada la inoo qabtay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa qofka bilaadankuuna waxa weeyaan qofku markuu shaqeeyo mahad cesho weeyaan laba doorasho wanaagsan oo qabtay 7 sano wadanka si fiican buu soo daadihiyay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa madaxweyne Muuse Ilaahay isagana mustaqbalka wax wanaagsan nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ku waarna Ilaah baan uga baryaynaa mar saddexaadka caawalkan muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan inaan soo dhaweyno madaxweynaheena cusub Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cirro hambalyo baan leenahay hambalyo madaxweynahan ku leenahay waana nu ducaynaynaa Ilaahay inuu dib yareeyo xilka aan saarnay in dhamaanteen filayno insha Allah haddii Ilaahay raado inuu ku guuleysto marka isagana haddii Ilaahay raado waxaan Ilaahay uga baryaynaa Ilaahay inuu wadanka kii ku guuleysta horumarna gaarsiiya 5 sano soo socotana insha Allah waxyaalo la goosan karo ixtiraaf inuu gaarsiiyaan yaan rajaynaa haddii Ilaahay raado madaxweynaha cusub ee aynu dooranay waan hambalyeynayaa waana u ducaynayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu xilka ku asturo inuu ilaahay u fududeeyo inuu ilaahay ka dhigo kii dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba anfaca innagana inuu ilaahay inaga dhigo kuwii adeeca ee wanaaga iyo khayrka uu wado ku adeeca assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu haddaan ku bilaabo bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynahii xilka inoo qabtay aad buu mahadsan yahay waynu sii mahadnaqaynaa dadkii commissionkii doorashada inoo qabtayna aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa dadweynihii doorashada si wanaagsan inoogu galayna iyagana waynu mahadnaqaynaa madaxweynaha cusub ee qabtay xilka waynu u ducaynaynaa waynaynu hambaliyeynaynaa waxaan leenahay ilaahay xilka kula garab galo ilaahay xilka kula garab galo ilaahay kii ummadiyo dalkiisa iyo dadkiisaba anfacaha ka dhigo ilaahay kii cadaalad lagu maamulaha ka dhigo waxa aynu kale leenahay ilaahay xaqa ku garansiyaha ka dhigo hadal badan oo kale ma si yaalo deeymka siyaasadda waxaas way iska soo gabaabsiyeen anigu ducadaasaan ku soo sagooteeyaa aadna wuu mahadsantii madaxweynahan imika inaga tagay ee shalay tolo lam sii sabootiyay ee qaranka Somaliland muddo 7 sano soo hogaaminayay oo runtii dulqaadkeeda iyo maxaan ku dhabar adeegeedaba yeeshay run ahaantiina kaga tagay maxaan ku rahaa meel fiican iyo fariin fiican doorasho isku sidkan ay noo sameeyay waxa weeye hadeenan is wada xusin waxa weeye qof waxa la ilaahay u mahad celin waayaa de bilaadan baynu nahayo wana is wada xaqirna maaha meel fiican min soo gaartay marka hambaliyadiisu leeyahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sidoo kale madaxweynaha inoo yimid maanta ma sha Allah tabaarak baan leeyahay duca qabe heesa badan loo qaaday sida aynu ugu ducaynay
sidii loo soo saaray sidii dhabarka loogu xidhay sidii taageerayaashiisa ay muujiyeen dardarta quruxda badan ee isbedel doonka ah innaga haddaynu qurba joog nahay laftigeedu isbeddelkaa waa in lanaga helaa madaxweynuhuna sidiisaba dadku inay ilbaxaan baa wanaagsan madaxweynaha haddii aan lala shaqaynin oo dee dadkii midhiyihii bayna waalay oo midhiyihii baa xanaf inagu reebay oo qolo kastaaba in xun iyo in wanaagsan buu leedahay waxaan maadaama dee imika la joogo sanadkii waxaa sii dhammaanaya 2024 baa soo gelaya waxaan u baahannahay isku tanaasil waxaan u baahannahay midnimo waxaan u baahannahay inaan gacmaha isqabsano waxaan u baahannahay inaynu waxyaabaha miidiyaha ka xun ee dhacaya reerna ma xuma reer walba u wanaagsan yahay in wanaagsan u leeyahay afarta qof ayna xumaynaya in maadeer aan iska qabano wasalaam rag iyo dumarba horta ilaahay baa mahadle ilaahay nabadgelyo inoogu dhameeyey doorashadii dhacday anigu magaalada hargeysa aan joogay intii doorashadu jirtay waxa weeyaan si nabadgelyo oo aad u qurux badan ayay noogu dhacday xisbi ma guulaysan somaliland oo dhan baana guulaysatay doorashadaas macnihii midda quraatay maanta laynooga baahayna wadajirkeenna iyo walaaltinimada iyo isku duubnaanteenna inaynu ka shaqayno madaxweynaha la doortay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro cigaal ilaahay haw fududay xilkaa maanta qabtay muuse bixi cabdina ilaahay cimriga iyo caafimaadka baa allah u siyaadiyo wax badan buu soo qabtay looga xasuusan doono waanu ducaynaynaa shacabkeenna somaliland midnimadeennu waa jiritaanka somaliland waxaan rabaa inaan aad ugu ducayno madaxweynihii inaga tegey ee doorashada inoo qabtay ee sida sharafta leh quruxda badan leh u qabtay iyo wanaagga waan hambalyaynaynaa waxaan leenahay ilaahay wax sala kula kulmiyo inta kuwa hadhayna khayr iyo nabad ku noolow laakiin waxaan leenahay dhammaanteed waa inaan dariiqa guusha wada raacnaa ururkan cusub iyo xisbiga cusubba innagu unbaa wada leh meel inagama tegayo madaxweynena kaa unbaa inoo ah cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro isaga uun baynu ku daba safanaynaa waxaan jecelahay inaan la shaqayno garab istaagno taageerno siiba dadkeenna qurbaha jooga aynu aad u taageerno maanta caalamka meel kasta waan hadal hayaa waad maqasheen waad aragteen intii wadan ee kasoo qayb gashay doorashada wax dee meel kastoo degtidba adduunka maxaa imika shirkadadan u shaqeeyo oo jarmala ayaaba weydiiyo liban somaliland waanu aragnay waanu newska ka daawanay waxa weeyaan wax caalamka oo joornaalo badan lagu soo qoray weeyaan aad iyo aad iyo aad iyo aad ayuu doorashadii dabadeena dhacday samaacadeena kor ugu qaaday marka maanta waxaa loo baahan yahay inaynu gacmaha isqabsanno inaynaan is eegin kana qalade iyo kana saxsan inaynu qaranka u shaqayno midnimo cadaalad iyo horumar sinaan isjacayl kala dambayn isu tanaasul intaas horta intaa ma isla garana caawa intaasaynu halka wadanin yaa guulaystay somaliland xisbi ma guulaysan reer ma guulaysan hebel ma guulaysan somaliland baa guulaysatay somaliland baa guulaysatay guushaan ma wada qaadanaa guushaan ma wada qaadanaa guushaan ma wada qaadanaa ilaahay waxaan ka rajeynayaa inay nala qaataan ilaahay waxaan ka rajeynayaa qolada aynu dooranay inay nala qaataan ilaahay waxaan ka rajeynayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waar khayr fisha khayr baa helaysaane khayr baynu ka filan ilaahay khayr ay naga siiyo khayr baynu ka filan ilaahay khayr ay naga siiyo caaw koortoona ma arag mujtamac intaan u leego isugu yimaada komitigeenna caaw koortoo ma arag waan aad iyo aadna waan ugu farxay markii aan soo galay waa inaynu inagu isku tashannaa oo inu gacmaha is wada qabsannaa waxa alla waxa aynu ka soo horjeedno dal iyo debadba waa inaynu magaranaysaa madaxdeenna iyo haddii bukuuroo yahay magaranaysaa dowladdeennu ay intaba la socotaa way ogaataa marka waxaa kale oo leeyahay dee magaranaysaa sidaa magaranaysaa dee maanta mas-uuliyaddu saarani waa cero mas-uuliyad weyn ayaa saaran mas-uuliyaddaasna waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay u hawl yareeyo
aad iyo aadna waxaan idiga mahad celinayaa inaad igu sharaftaan maaragtay taytalka aan leeyahay anigoo ah ka socda xusbigii marka hore muxaafidka ahaa maantana mucaaradka ah umaynaan baran dad mucaarad iyo muxaafido oo meel isugu yimaada laakiin bal waxaynu bedelaynaa jawigii hore aynu ku wada shaqayn jirnay ee ahayd in lagu kala qaybsamo xusbiyada because dan guud bay naga dhaxaysaa qaran aan ictiraaf haysana waynu dhisaynaa marka qaranka ictiraafka dhisana haddii ayna mucaaradkii muxaafidkii wada socon midna ma dhismayo oo awood yeelan mayno horumar yeelan mayno isfahan yeelan mayno waxaanan jecelnahay in ay soo baxaan maskaxii qarsoonaa ee aan jaaniska haysanin inay soo baxaan si ay kaalintii hore loo buuxin waayey ay u buuxiyaan waxaanu nahay dan heer somaliland aynu nahay aynu fahanno xusbiyadu cidda dhashinatay somaliland oo markaynu somaliland ka hadlayno xusbiyada halkan inoo dhiga qarandhis baynu ku jiraa waxay nagu waajibo qof kastoo inaga mid ah ama mucaarad ha ahaado ama muxaafid ha ahaado inaynu qarankeena dhisano oo meel uga soo wada jeedno markii qaranka taagan tahay ta dhexdeenna maamaha baa jirta ah ahayd aqoonta marka la ficiltamayo la kala tegaya mood marka hore kala tegi mayno dad heer somaliland baynu nahay somalilandnimo aynu ku shaqayno qofka mucaaradka ahu mucaaradka loo baahan yahay weyga mucaaradku leeyahay waa inuu qaataa laakiin yaynan mucaaradnimada lafteeda waan arkay anigu horena waan uga hadli jiray oo kolley mucaaradnimada khalad yaynan ka fahmin mucaaradnimadu waa toosin waa loo baahan yahay waa toosin laakiin in curfi la geliyo ama si khaldan loo isticmaalo runtii waxbay dumisaa waxba ma toosiso waxna ma hagaajiso السلام عليكم برا سوماليلاند وكو سلامي مدحوينه عرو وكو هامبليي madaxweynaha musabix cabdi eed sida sharafta iyo milgada leh uga tagay xilka madaxweynaha cusub ee maxamed cabdilaahi cirana waxaan leenahay soo dhawow madaxweyne dadku jecel iyo dalku jecel ku soo dhawow anigoo shawqi maxamed xaaji cali guhaada halkan waxaan uga hambalyeerayaa madaxweynaha cusub iyo madaxweynihii xilka ku wareejiyey sida fiican midnimadu ka muuqatay kalgacalku ee ay iskugu wareejiyeen xilka cabdiraxmaan maxamed mudane madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waxaan leeyahay ilaahay weyn ee qaadirka ku fudaydiyo waxaan mar labaad leeyahay dadka reer somaliland war annagu london haddaanu nahay kulmiye iyo wadani wakaasi way midoobeen dadku way isku duuban yihiin somaliland daris baanu wadanahay war soo noqdo somaliland daris ku dhigin inta joogaan joogta iyo inta ka maqanee kalayba iyo inta qurba joogga dibadaha kala joogta yaa midnimo laydiga baahan yahay dowladda la garab istaagaa laydiga baahan yahay dadkoo wax la taraa laydiga baahan yahay nin la sugayo adnayaad sugi weeyaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaraynaa keegaynu ugu tala galnay xafladda madaxweynaha insha allah bismillaahi kariim khayr baynu ku jaraynaa soo dhawaada عيناوي عثمان دعالي وربعين تقارن كجمهورية الصومالي لندن